Maareeya macdanta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay inuu la galay shirkad shidaalka qoda heshiis sidaa darteedna uu looga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waa arrin dhaawac weyn ku ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo u sharaxan xilka ugu sareeya dalka mar kale. Madaxweynuhu waxa uu ku beeniyay waraaq uu ka soo diray fiidkii caawa arrintaas. Si la mid ah afhayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid oo ka hadlay arrintan waxa uu sheegay in wasiirka inaan la fadhiisin aysan xeerkii ugu fiicnaa aysan marin arrintan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uusan waxba ka ogeyn. Waa sida afhayeenku sheegay. Waxa uu sheegay inuusan madaxweynuhu Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dhow ula socdo wasiirada dibadda, laakiin wasiirkani ay u dambeysay xildhibaanka markuu doontay gabi ahaan lambaradii lagala xiriiri jiray uu damsaday. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu jaakiray, laakiin markii hore ay arrinta ku wada socdeen. Haddii loo gungalo waa arrin siyaasadeed oo ka dambeeyaan dhinacyada is haya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa Mudane Farmaajo waxaa haya dhinacyo badan oo ugu horeysay ra'iisul wasaaruhu, waxayna u egtahay mar kale inay indhaha saari doonaan asaga iyo Roble. Sida ay wax u socdaan haddii ay ku sii socoto waxaa lagu dhixi doonaa god aan laga soo laaban.